wakaalada biyaha ee magaalada Burco ayaa maanta soo bandhigtay waxqabadkeedii muddada 5 bilood ahayd ee maamulka hayeen mas'uuliyiinta xukuumadda cusub ee Soomaaliland u xil saartay xafladani lagu soo bandhigay waxqabadka wakaalada biyaha ee magaalada Burco ka dhacday xarunta wakaaladaasi ayaa ahayd mid ay ka soo qayb galeen shaqaalaha iyo maamulka wakaalada biyaha Burco ka gobolka Togdheer kan degmada Burco xildhibaano salaadiin uqaal abwaano waxqabadka gobolka Togdheer iyo dadweynaha aad u tiro badan ugu horeyn waxa munaasabadaasi ka hadlay maareeyaha wakaalada biyaha magaalada Burco Ibrahim Yusuf oo sheegay in qabashada xafladani maanta ay tahay muhiimadeedu inay u soo bandhigaan bulshada waxyaabihii u qabsoomay iyo carqaladihii ka hor yimid muddada 5 bilood ahayd ee xilka hayeen maareeyuhu waxa uu ku dheeraaday waxqabadka ay soo kordhiyeen isagoo tilmaamay inay ku guuleysteen in mushaharka shaqaalaha oo maqnaa muddo gaadhaysa 9 bilood ay bixiyaan iyadoo waliba mashiino iyo gaadiid cusub ay leedahay wakaaladuna ay soo kordhiyaan taasi oo ku timi amaah lacageed oo banka dhexe ee Soomaaliland uu siiyay wakaalada biyaha Burco waxaanu la wareegnay deyn fara badan oo ay leeyihiin shaqaaluhu iyo dadweynuhu ay leeyihiin deyntaasi waxay gaadhaysay 674 milyan 574 kun oo lacagta Soomaaliland waxaanu la wareegnay lacag 25 kun oo dollar ah oo iyaduna deyna intaas deynta aanu meesha ka dhaxlay weeye waxaanu la wareegnay 5 gaari oo wakaaladu leedahay oo marka halka gaari halka taagan calaawiga laga reebo 4 gaari kale bay fadhiyaan oo naafay yihiin ayaan la wareegnay waxaanu la wareegnay 5 ceel oo ay leedahay wakaaladu oo 5 taba afarna leydka shirkadda ka ilaahay khayr ha siiye ay leydka siiso ceelka shanaad ceelka jaaliyadaana uu saaran yahay mashiin uu leeyahay isbitaalka guud noo deyntii lagu lahaa meesha oo 80% shaqaaluhu ay lahaayeen inaanu 374 milyan oo deyna bixino 5 bilood aan joognay meesha oo maanta shaqaalihii 3 qaybood bay ahaayeen qaar 10 bilood bay lahaayeen qaarna 8 bilood bay lahaayeen qaarna 6 bilood bay lahaayeen maanta shaqaaluhu deynta uu leeyahay waxay tahay marka la isku celceliyo waa 3 bilood xaqlo isaguna xafladaasi ka hadlay maareeyaha ku-xigeenka wakaalada biyaha ee Burco Faarax Cali Yuusuf oo isna ka warbixiyay wakaalada biyaha iyo guulaha kale ay ku talaabsatay isagoo tilmaamay in muddadii ay maamulayeen wakaalada ay ku guuleysteen in lacagaha soo ururiyaan isagoo si gaar ah ugu mahad celiyay in shacbiga gobolka Togdheer ay haatan bixiyaan lacagta biyaha maareeyaha ku-xigeenka wakaalada biyaha Burco oo ka hadlay hadal dhawaan ka soo yeeray xiriiryaha qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya ee arrimaha bini'aadantinimada Mr. Mark Borden hadal ka soo yeeray oo ahaa inay mashaariic biyo-gelina ka fuliyeen magaalada Burco ayaa hadalkaasi uu ku tilmaamay inuu yahay mid aan sal iyo raatoon lahayn gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi iyo gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Burco Mr. Axmed Cabdi Fly oo iyaguna xafladaasi ka hadlay ayaa sheegay inay u mahad celinayaan maareeyaha iyo shaqaalaha wakaalada biyaha Burco oo ku talaabsaday horumar la taaban karo iyagoo shacbigana ku bogaadiyay sida fiican ay uga shaqeeyeen waxaana ugu baaqeen in loo baahan yahay ilaamaha kala duwan ee dawladda ee hor gobol ay bixiyaan lacagaha wakaalada biyaha oo ah kaliya aan ilaanteed shaqeyn karin Burco oo xafladan inoo qabatay harumarka ay gaadhay iyo waxqabadka runtii aad iyo aad u wanaagsan ay isaga ka warbixiyeen halkan oo aynu xafladan isugu nimi waxaan marka hore ku horeynayaa halkan wakaaladu waxay nooga sheegeen inay inoo iibiyeen mashiin weyn oo leyd oo ay ka amaahdeen lacagtiisa bangiga dhexe howlgalkiisana uu lahaa bangiga ka furan Burco waxay inoo sheegeen 2 gaari oo halka taagan oo iyaguna ay soo iibiyeen aad iyo aad baan horumarka ugu mahadnaqayaa sida fiican ee maanta aad ogaasinteen ama wakaaladda aad u hanateen waxaan rajaynayaa inaad ka sii ballaarin doontaan haddii Ilaahay ka dhigo agaasimaha gobolada bariga ee banka dhexe ee Soomaaliland Cumar Xogaal oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inay tahay markii ugu horeysay banka Burco uu lacag amaahiyo wakaalada biyaha ee Burco taasoo uu ku sheegay inay ku mutaysteen maamulka cusub ee wakaalada oo ah mid la yimid waxqabad cad oo la taaban karo waxa kale iyaguna munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha guddiga horumarinta gobolka Togdheer Maxamuud Aadan Dhari oday Maxamed Xuseen Abwaan Hurre Walaanwal iyo marti sharaf kale oo badan dhamaantoodna waxay bogaadiyeen waxqabadka wakaalada biyaha ee Burco ay la timi muddadii koobneed ee xilka hayeen iyagoo shacbiga gobolkan ugu baaqay in si wanaagsan loola shaqeeyo ugu dambeyntii waxa halkaas lagu soo bandhigay riwaayad ka turjumaysay
qaabkii musuqmaasuqa badnaa ee wakaalada Burco u shaqayn jirtay iyo sida hufan ay haatan u shaqayso taasi oo keentay in shacbiga gobolka Togdheer oo markii hore lacagta biyaha intooda badan bixin jirin ay hadda bixiyaan isbedelka dalka ka dhacay iyo hoggaanka cusub ee la doortay dadkaasoo meedha baa waddanka joog war maxaa shaqaaluhu noo hagaagayo arrintu noo hagaag waynu madaaxayna telefoonkaaga ii qor waar telefoon lahayna tukalaydu ku dhifayo ordoo naga taga محمد عود محمد تلفزيون كعالمي Somali Channel برعو